taliska qaybta booliska gobolka Mudug maamulka gobolka Mudug kan degmada Gaalkacyo ayaa soo saaray amar lagu mamnuucayo bacaha madow ee lagu dhegsado baabuurta loo yaqaan pencil waxay si toos uga fiiqeen baabuurtooda ay ka bilaabeen duqa degmada Gaalkacyo Cabdicasiis Jaamac Nugal ayaa marka hore ka hadlay arrinkaasi maanta aan soo nimid oo halkan ay taan ka cadeynayna dhammaan baabuurta leh muxuu ahayto solarka ama waxa weeyaan warqad ku dhigantahay bersal ku dhigan yahay oo mas'uuliyiintu ay wadato maanta in halka lagu fiiqo taana waxa weeyaan taliyaha qaybta ayaa faahfaahinaya waxaan jecelahay dadweynaha kale si amniga loo ilaaliyo loona aqoonsado qofka baabuurka wata waxa weeyaan dadweynaha oo dhanna inay maarta arrinta ku daydaan waa arrin tusaale leh runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay maanta sidaa u dhacdo muxuu ahayd taliyaha qaybta laakiin si faahfaahinaya taliyaha ku xigeenka qaybta booliska gobolka Mudug gaashaan la sar Cabdishiid Xasan Xaashi Gabi ayaa isaguna ka hadlay waxa la mamnuucay mar labaad beersolka bacda madow oo lagu dhajiyay baabuurta mandaradahooda lagu dhajiyo baa la mamnuucay mar labaad waxaanu leenahay ciddii lagu arko waxa loo aqoonsanayaa oo fulin weyday ama miirta dawladda oo dambiilayaal loo aqoonsan doonaa waxaan leeyahay ciidamada dawladda wadaxda dawladda sida wasiirada agaasimayaasha madaxda dawladaha hoose iyo kuwa maxkamadaha kuwa booliiska dhammaantood waxaan leenahay marka ugu horeysa waa inay ayagu fiiqaan oo ay ayagu la diriraan bacda madow baabuurtoodana ay ka dhameeyaan hadda waxaan horyaal baabuurtana hortaal waxa laga fiiqayaa beersalka bacda ku dhagan waa gaadiidka gaariga xogeeyaha gaariga taliyaha qaybta gaariga gudoomiyaha gobolka gaariga kale oo marketka asagana waxa leh maayirka leh waa laga fiiqayaa waxaad u jeedaan in laga fiiqayo kuwii dawladdu wadatay dadka shacabka waa u dambaysiin doonaa laakiin hadda waxa la rabaa dadka dawladda ah inay amarka dawladda fuliyaan marka ka bacdi u gudbo dadka shacabka loo gudbo maalin walba inaynu dadka ku fariisanno shacabka inaynu ku fariisanno ma soconayse waa in dawladdu ay dib isugu noqotaa waa inay iyadu iska fiiqdaa ciidamadu waa inay fiiqaan waxaan kale u sheegayaa ciidamada dawladda waxay fuulayaan oo ay la socdaan marmarka qaarkood baabuur bac madow ku dhagan tahay oo aysan ciidamadu lahayn ee dad kale dad shacbi ay leeyihiin waxaan leenahay ma fuuli ka dhaan waa mamnuuc bacda madow meeshaad aragtaan baa ku fiiqi ka dhaan amar baad u qabtaan waa amar wareegta laga soo saaray bacda madow cidi ma wadan ka dawladda iyo shacabka mid cid wadan ka dhaama jiro haddana waxa laga fiiqayaa baabuurta horteeda aad iyo aad baa mahadsantiin kuwa hadda ku sii dhaga adeegaya oo hadeer lala hadlay oo sii dhaga adeegaya waxaan leeyahay u dhaga nuglaada maalmihii u dambeeyay Gaalkacyo waxa ku soo badanaya dadka isticmaala bacaha madow oo loo yaqaan pencilka kuwaas oo lagu soo dhajiyo baabuurta muraayadahooda Cabdullaahi Yare TV-ga idaacadda SBC magaalada Gaalkacyo